su-aasha koobaad waxa soo qoray saciid oo ceerigaabu ka soo qoray waxa uu leeyahay taxiyaadka inteebaa waajiba inteebaa sunna ah ataxiyaadka inta waajibka ahi waxa weeye ilaa salliga nebiga ataxiyaatu almubaarakaatu laga bilaabo ama ataxiyaatu lilah labada siiqa mid kastaa la akhriya ilaa salliga nebiga waa waajib waliba ataxiyaadka dambe faralka ah ee arkaanta salaada ka mid ah wixii intaa ka sii dambeeya oo ducada ahina waa sunne marka intaa waajibka waa in qofku aad u qaybaa asxaabtuna waxay leeyihiin ridwaanullaahi calayhim nebigu sida qur-aanka uu noo baro ataxiyaadkana noo bari jiray marka waxay leeyihiin dadweynaha cibaadaysanaya tukanaya ku dadaala ataxiyaadka inaad ku dul akhridaan culimada si qaladka uga saartaan si saxanna u akhridaan su-aashan waxaa soo qoray maxamed muqdisho ka soo qoray ama aan idhaahdo cabdirashiid baa soo qoray wuxuu leeyahay bisinka marka aan ku jiro xamaamka aan xamaamka dhexdiisa ku weysiisanaya bisinka miyaan akhriyaya mise waan iska daynaya jawaabtu waxa weeye qalbiguunbaad ku qabanaysa laakiin afka kama odhanaysid waa dikrigii ilaahay oo kuma habboona halkan aan wanaagsanayn culimada qayb ka mida waxay qabaan marka uu qofku weysaysanayo inuu bisinka akhriyaa inay sunnata qayb ka midiina waxay qabaan inuu waajib yahay marka kuwa waajibka laftigooda in badan oo ka mid waxay leeyihiin qofku hoos u akhriyo ama aan idhaahdee qalbiga ha ku akhriyo oo uu ku dhawaaqi marka sidaas ku habboon dikriga ilaahay iyo magaca ilaahay meeshana wanaagsaneyn markuu qofku joogo inaanu kor u qaadin weeyii su-aashan maxamed baa soo qoro muqdisho ka soo qoray waxa uu leeyahay lacagtan la maydho ee madow iyo xukunkeeda ma xalaal ba mise waa xaraam waa xaraam weeye waa boob qofkii aan xoolo haysan baa dadka xoolahooda ku boobaya marka waxyaabaha taswiirka ah iyo qishka iyo isweydaariska waa xaraam rasuulkeenuna sallallahu alayhi wasallam xadiidkii saxiixa wuxuu ku yiri man qashana falaysa minna qofka annaga waxiisu kaaya weydaariya muslimkayaga ka mid maaha buu leeyahay rasuulku sallallahu alayhi wasallam marka qofku dariiqo xalaala ayuu wax ku raadinaya haddii ay uu gaal la dhaqmayo iyo hadduu islaam la dhaqmayo labadaba gabadhan najma la yiraahdaa muqdisho ka soo qortay su-aasheedu waxa weeye ninkaygu waqtigii hore umaan roonayn laakiin isagu wii roonaa markii dambe ee anigii aan wax fahmeen weynaadeen xaqiisii siiyeyna isagii baa iga sii jeestay maxaa yeelnaa waxaad yeelaysaa tafaahum baa lagama maarmaana si wanaagsan in loo wada dhaqmo ilaahay baa wuxuu uhi wacaashiruuhunna bilmacruuf si wanaagsan ula dhaqma dumarkiina dardaarankaasoo kalea la siiyey iyagana inay ninkoodii wixii wanaagsan ka aqbalaan oo arrinkeen noqdaan aqbalkeen noqdaan baan leeyahay marka xuquuqda xaaska dib ugu noqda qof walibana xilkiisa ha guto waxaana muhiima shareecada islaamka wixii ay ka odhanaysa xuquuqda qoyska inaad barataan oo casharo ah qaybtaan ay noqoto qur-aan iyo xadiidba sidaasuu reerkuna ku barakoobaya cabdulqaadir oo garowga ka soo qoray su-aashiisu waxa ay la xidhiidhaa rukuucda ma lagu gaadhayaa ragcadda oo qofkii markuu rukuucda imaamku ku soo gaadho ma loo tirinayaa horeynu u soo jawaabnay ayaynu uga jawaabnay su-aalihii hore haa imaamkoo rukuucsan hadduu si fiican qofku ugu gaadho oo aanay isweydaaranin ragcaddaa waa loo tirinayaa faatixadiina waqtigaa waa laga dhaafayaa khilaafo jira laakiin qowlkaasaynu qaadanaynaa shantaas su-aalood baynu ku soo ururin allah idin barakeeyo waxaynu u baahanay wanaagsanna allah inoo fuliyo waxaynu ka baqaynana balaana allah inaga badbaadiyo والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سؤاشا وحسو قرطي نفيسة جبوتي بك سو قرطي وحيلا هاي هو يوحي يقدر قيسة انت بين شاوة انا بين كل وفو او الضبادة قال هذا ولوفو حي يلا والدك وحا لقى اقبلا وحي صواب يصحح لكن وحي باطل لقى بيهلو لا ضاعة لمخلوق في معصية الخالق
iyadoo ilaahay la caasiyayo cid lama adeecayo sidaa daraaddeed ku qanci waxaan inuu dembi yahay hooyo marka been sheego ku tahriib lagama aqbalayo وصاحبهما في الدنيا معروفا بولاهي samafalka adduunyada waad ka aqbali laakiin inay baadil kugu dirqiyaan ha ogolaan Abubakar Jarmalku ka soo qoray waxa uu leeyahay marka salaaduhu isku dhadhawaadaan maqribkii cishaayiga ma jamcin karaa ma isu geyn karaa maya labada salaadood mid walba waqtigeeda la tukanaya ilaahay wuxuu inna salaata kaanat cala almu'miniina kitaaban mawquuta waa waajib waqti leh oo muuminiinta saaran salaadu saasuu ilaahay sheegay marka waajibka waqtigiisa idinku ilaalin habay isku dhadhawaadeen deeqa waxay ka soo qortay Canada waxay leedahay qofku marka had iyo jeer uu doonayo udxiyadoo kale inuu qalo ama gowraco neef wax ka badan ma gowrici karaa jawaabtu waxa weeye haa uu gowrici karayaa gowraca xoolaha la gowracayo ilaahay daraadii loo qalaya waa cibaado ilaahay loogu dhawaanayo sidaynu ogsoonay nabigu sallallahu alayhi wasallam sanadkii ummadda uu sagootiyay xajjatul wadaac 100 neef oo geela ayuu qalay 60 iyo dheeraad isaga gacantiisa shariifka ku gowracay nabigu sallallahu alayhi wasallam intii kalena cali buu gowrac macnaha nabigu sidoo u xoog badnaa iyo sidoo xirfado kala duwan u yaqaanay bay muujinaysaa arintaas marka maadaama hadigii uu nabigu saa u gowracay udxiyadiina waa la mid Xafsa Mareykankay ka soo qortay waxay leedahay waqti hore ayaan dukaan ka xaday cajaladaan kala tagay laakiin cajaladaha waxaan wanaagsanayn baa ku duubnaa dadkaasina dad shisheeyaa bay ahaayeen saadaradeed mana garanayo meeshii maxay yeelaa waxa aad xaday kol hadaan maal ahayn ee uu ahaa wax dhaqan xumo ah cajalada dhaqan xumo ku jirto kol hadii ahayd maal ma aho magdhow ma leh ilaahayna uga toobadkeen kafafka hore ee aad ku dhacday Salma Canada ka soo qortay waxay leedahay waxaynu aragnaa meydka gaaladu banaankay soo dhigaan dadka ku warwareega muddo markaas la daawada ubaxya la duldhigaa arintaasi dadka muslimiinta ah baa qaarkood kaga daydaanay ma saxba ma sax maaha meydku xaq buu leeyahay xaqiisuna waa afar markuu dhinto qof afartaas waxa weyn la maydho kafal lagu xidho salaada lagu tukado kadibna la aaso meydkii muslimka afartaas uu leeyahay xuquuqdiisaas waa in loo dhaqsadaa oo tajhiisul meyd baa la yiraahdaa tabaabushaynta meydka dadka nool baana arrimahaas ku waajibaan waliba nabigu wuxuu faray sallallahu alayhi wasallam in lala dhaqsado jinaasada oo socodka la kordhiyo oo hore loola dhaqsado ayaa sunna ka dhigay nabigu alayhi salaatu wasalaam laakiin la sii haysto oo halkan uu ku sii agyaalo arrin sax ma dhaqanka shisheeyaha iyo gaaladana in lagu daydo uu diiday nabigu man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum wuxuu rasuulkeenu leeyahay sallallahu alayhi wasallam qofka qolay soo ageysiya iyagu kamid yahay macnaa fil afraahi wa fil ahzan marka faraxana lagu dayan maayo arooska iyo xafladaha marka murugadana lagu dayan maayo iyo marka geerida dadka muslimiinta ah waa dad ku dayanaya rasuulkooda sallallahu alayhi wasallam maadaama ilaahay diintii uu noogu soo dhiibay maqal iyo muuqaalna uu nagu soo gaarsiiyay sidaasaynu ajri iyo abaal wanaagsan ku helayna الله ينقى أبا المريء وهذا ما أقوله وأستغفر الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته